ma barakicin hooyooyin masaakiin ah mana faagin qabuuro waana ninka hadda shacabku ugu raadinta badan yihiin cidda aan ka hadlayo cid kale ma ahan ee waa ninkii loo yaqaanay xabiibul malaayiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu hadda noqday mid ay dadku arkaan inuu ka fiicnaa Xasan Sheekh Maxamuud marka laga reebo dad sax iyo qalad ba ku difaacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ayaa markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka intii u dhaxaysay November 2010 ilaa June 2011 waxa ay dadku aad ugu riyaaqeen xilligaas oo lagu amaanay hagaajinta ammaanka iyo dagaalanka al-shabaab isla sanadkii 2011 kadib bilooyin oo socday isqabqabsi ka dhashay doorashada madaxweynaha wuxuu ogolaaday inuu xilka ra'iisul wasaaraha iska casilo isagoona sheegay in danaha dadka Soomaaliyeed awgood uu uga qaatay go'aankaasi bishii Febraayo sanadkii 2017 waxa loo doortay inuu noqdo madaxweynihii sagaalaad ee soo maray Soomaaliya tan iyo xilligii xornimada ilaa waqtigii burburka iyo dagaaladii sokeeye maxamed oo la tilmaamay inuu yahay siyaasiga ugu caansan Soomaaliya markii loo caleema saaray madaxweynaha waxa uu la wareegay xafiiska Soomaaliya ugu sareeya iyadoona dalku wajahay markaasi abaarad danan iyo kacdoon ka dhanaha al-shabaab markii uu dhamaaday muddo xileedkii Farmaajo oo ku ekaa bishii labaad ee sanadkii 2021 waxa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse go'aankaasi oo dhaliyay khilaaf weyn oo siyaasadeed ayaa markii dambe meesha laga saaray ku dhawaad hal sano ayay socdeen khilaafaadka ku saabsan doorashada Soomaaliya oo ay dhinacyadu isku mari waayeen qodobada qaarkood xilligaasi siyaasiyiinta musharaxiinta ah ayaa bilaabay kicin dadweyne iyo in ay bulshada ka hor keenaan Farmaajo ay jeclaayeen iyagoona ku eedeeyay nin kaligiis talis ah oo aan ogolayn wax doorasho ah in ay dalku ka dhacdo waxa ay olole ka dhigteen ciidamada lagu tababarayay dalka Eritrea oo xogtooda la waayay waxa ayna siyaasiyiintu sheegeen in ciidankaas ay ka qayb qaateen dagaal u dhaxeeyay dawladda Itoobiya iyo qowmiyadda Tigreega walow ay siyaasiyiintu qaarkood ku sugteen in ay dhahaan waxa ay ka qayb qaateen ciidamadaasi dagaalkii u dhaxeeyay dawladda Ruushka iyo Ukraine balse eedahaas oo u badnaa olole ugu dambeyn waxa la ogaaday inay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn balse lagu talagalay inay iska hor keenaan dadka shacabka ah iyo Farmaajo waxaana siyaasiyiinta u suurta gashay hamigoodii ee ahaa in filada laga saaro Farmaajo doorashadii kadib Xasan Sheekh waxa loo bixiyay magacyo badan oo ay kamid ahaayeen dal xoreeyo iyo kuwa kale balse muddooyin kadib waxa uu lumiyay taageerayaal badan oo ka dagay tareenka Xasan Sheekh faagidii qabuurihii iskuul buluusiya iyo barakicinta shacabka dabdamiska waxa ay noqdeen mid aad loogu dhaliilo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana wax dhageysta waayay catawga dadweynaha shacabka qaarkood waxay ku cataabayaan waxa noo fiicnaa madaxweyne Farmaajo ee yaa noo soo celiyay mar kaliya dabada wada maxay kula tahay adiga yaad soo codaynaysaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo